بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. dhammaan walaalaha Soomaaliyeed caalamka meel walba aad ka joogtaan waad salaamantihiin. Salaan kadib waxaa farxad weyn inoo ah inaan idiin soo gudbino waxqabadka hay'adda Gurmad Somali Relief. Gurmad waa hay'ad Soomaaliyeed oo ka howlgeli doonta 18 gobol ee waddanka Soomaaliya. Gurmad waxaa la aasaasay 19 bisha Abriil sanadka 2016. waxaa lagu aasaasay magaalada Melbourne ee waddanka Australia. Gurmad waxaa aasaasay 5 ruux oo walaalo Soomaaliyeed ah oo run ahaantii ka danqadeen dhibaatada haysata walaalaha Soomaaliyeed ee waddanka ku sugan. walaalaha hay'adda Gurmad aasaastay wax saami ah ama commission ah kama qaadan doonaan lacagaha ay soo aruuriyaan. qarashaadka la soo aruuriya waxaa lagu bixin doonaa mashaariicdii loo aruuriyay iyo wixii ku baxa fulinta mashaariicdaasi. hay'adda Gurmad ahdaafta loo aasaasay ayaa waxaa ka mid ah in ay fursad waxbarasho ay u furto carruurta aytaamta ee waddanka ku dhibaataysan oo run ahaantii hooyooyinka ay fursadda u saamixi weyday inay iskuulaadka u diraan ama ay ka bixiyaan qarashaadka iskuulaadka. waxaa sidoo kale hay'adda Gurmad haddii uu Ilaahay idmo ay wax ka qaban doontaa dhibaatooyinka waddanka ka dhaca sida abaaraha, daadadka, cudurrada iyo wixii la midka ah. waxaa horaantii bishii December ee sanadka 2016 inoo suura gashay in aan bilowno olole lacag aruurin ah oo runtii loogu gurmanayo walaalaha Soomaaliyeed ee abaartu aafaysay ee ku sugan waddanka. ololahaasi ayaa wuxuu ahaa mid socday muddo bil ah, waxaana Ilaahay fadligii ee ku soo aruurtay lacag gaaraysa 45,166 doolarka Australiyaanka ah oo u dhiganta 32,510 doolar oo ah doolarka Mareykanka. lacagtaasi ayaa waxay ahayd mid ay soo aruuriyeen guud ahaan walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne ee waddanka Australia. qiimeyn dheer kadib waxaa maamulka hay'addu ay soo ogaadeen in ay abaartu ay ka jirto guud ahaan gobollada waddanka Soomaaliya. waxaa sidoo kale ay soo xaqiijiyeen in 8 gobol ay xaaladooda aad ay u daran tahay. maamulka hay'adda waxay go'aan ku gaareen in ay gurmadka koowaad ay wax la gaaraan 8 gobol ee abaartu sida daran ay u saameysay oo ka mid ah gobolka Baay, Bakool, Gedo, Mudug, Nugaal, Sool, Sanaag iyo Togdheer. waxaa 13 bisha January ee sanadka 2017 gaaray magaalada Gowlale ee gobolka Mudug gurmadkii koowaad ay dirtay hay'adda Gurmad Somali Relief. magaaladaasi waxaa tegay Sheekh Maxamed Cali Good oo ka mid ah aasaasiyaasha hay'adda. waxaa Ilaahay fadligii wax loo qaybiyay 50 qoys. 50kaasi qoys ayaa qoyskiiba waxaa la siiyey 25 kilogram oo bariis ah, 25 kilogram oo sonkor ah, 25 kilogram oo bur ah, 1 gasac oo caano boora ah, 2 kilogram oo timir ah, iyo waxaa sidoo kale deegaanka laga qaybiyey 10 booyadood oo biyo ah. waxaa sidoo kale 14 bisha January ee sanadka 2017 gurmadkii abaaraha uu horkacayay Sheekh Maxamed Cali Good uu tegay deegaanka Burtinle ee gobolka Nugaal. deegaankaasi ayaa waxaa inoo suura gashay in la iskugu keeno dad badan oo run ahaantii aad u dhibaataysan oo laga kala keenay tuulooyinka ku dhow deegaanka Burtinle ee gobolka Nugaal. qoysaska halkaa la iskugu keenay ayaa waxaa tiradoodii ay ahayd 60 qoys oo run ahaantii aad u dhibaataysnaa. 60kaasi qoys ayaa qoyskiiba waxaa sidoo kale la siiyey 25 kilogram oo bariis ah, 25 kilogram oo sonkor ah, 25 kilogram oo bur ah,
hal gasac oo caano booro ah iyo 2 kilogaram oo timir ah. waxaa sidoo kale 15 bisha January sanadka 2017 uu gaaray magaalada Gebi ee deegaanka Baran ee gobolka Sanaag gurmadkii abaaraha uu horkacayay Sheekh Maxamed Cali Good. deegaankaasi ayaa waxaa Ilaahay fadligii inoo suura gashay in wax loo qaybiyo 80 qoys oo ka mid ahaa qoysaskii ka soo barakacay abaaraha iyo dad ka soo jeeday deegaankaba oo run ahaantii aad u dhibaataysnaa. 80kaasi qoys ayaa qoyskiiba waxaa la siiyey 25 kilogaram oo bariis ah, 25 kilogaram oo sonkor ah, 25 kilogaram oo bur ah, haaf oo ah gasaca weyn ee caano booraha ah, 2 kilogaram oo timir ah iyo 3 litir oo saliid ah. waxaa sidoo kale magaalada Dhuxun ee gobolka Sool gaaray gurmadkii abaaraha oo horkacay Sheekh Maxamed Cali Good. taariikhda markay ahayd 17 bisha January sanadka 2017 gobolka Sool ayaa waxaa Ilaahay fadligii 60 qoys oo ka mid ah qoysaska ee abaartu ay saameysay loo qaybiyay raashin biyo dhaamina loogu sameeyay. 60kaasi qoys ayaa qoyskiiba waxaa sidoo kale la siiyey 25 kilogaram oo bariis ah, 25 kilogaram oo sonkor ah, 25 kilogaram oo bur ah, 2 kiilo oo timir ah, 3 litir oo saliid ah iyo 14 booyadood oo biyo ah ayaa sidoo kale loo qaybiyay dadka deegaanka ku dhaqan. waxaa wakiilka hay'adda gurmad Somali Relief ay dirtay Sheekh Maxamed Cali Good u suurageli weyday in uu gaaro gobolka Togdheer. hase ahaatee waxaan gobolkaasi aan u wakiilanay walaal lagu magacaabo Cabdimaalig Coldoon oo run ahaantii amaanadiisa aan ku kalsoonnahay. sida caadada markaan gobolka aan tagno waxaan wareysan jirnay dadka deegaanka ku dhaqan oo aan ka wareysan jirnay baahida ugu daran markaasi haysa. walaalka aan wareysanay ayaa wuxuu inoo sheegay inay jiraan dad ama shakhsiyaad geeyay raashin, hase ahaatee dadku ay u baahan yihiin biyo dhaamin. sidaas daraaddeed waxaan u xil saaranay walaalka Cabdimaalig Coldoon in uu ka qaybiyo 10 booyadood oo biyo ah tuulooyin ku dhow magaalada Burco ee gobolka Togdheer. run ahaantii feedback fiican inooga soo diray fiidiyoyo caddaynaya isagoo qaybinaya biyihii. Ilaahay Azza wa Jalla ha ka ajirsiiyo walaalka oo hawsha run ahaantii mas'uuliyadda inaga guday. walaalaha biyahaasi la gaarsiiyeyna Ilaahay ayaan u weydiinay in uu fadligiisa ku deeqo. waxaa sidoo kale gobolada Ba iyo Bakool ay ka mid ahaayeen goboladii uu tegi waayey wakiilka hay'adda gurmad Somali Relief Sheekh Maxamed Cali Good. hase ahaatee waxay hay'addu ay u wakiilatay walaal lagu magacaabo Xasan Sidni oo isaguna markii dambe u wakiishay Sheekh Cabdifataax Xasan oo run ahaantii amaanadiisa lagu kalsoon yahay. Sheekh Cabdifataax ayaa waxa uu mashruuc aad u ballaaran oo biyo dhaamin iyo raashin qaybinba ka sameeyay gobolka. mashruucaasi ayaa wuxuu socday inta u dhaxaysa 15 bisha January ilaa 20 bisha January ee sanadka 2017. deeqdii loogu talagalay goboladaasi ayaa waxaa loo qaybiyay tuulooyin kala duwan. magaalada Baydhabo 40 qoys oo ka mid ah qoysaskii abaaraha ka soo barakacay ayaa waxaa loo qaybiyay qoys waliba 25 kilogaram oo bariis ah iyo 3 litir oo saliid ah. waxaa sidoo kale magaalada Baydhabo raashin loo qaybiyay 70 caruur aytaam ah oo meel xira lagu xanaaneynayay. run ahaantii la inoo sheegay in uu ka go'ay raashinkii. Ilaahay Azza wa Jalla ayaan ugu mahad celinaynaa. waxaa sidoo kale magaalada Baydhabo laga sameeyay biyo dhaamin oo run ahaantii ilaa 3 booyadood oo biyo ah
laga qaybiyey isla magaaladaasi Baydhabo. waxaa sidoo kale magaalada Buur Hakaba laga sameeyey mashruuc oo biyo dhaamin ah. waxaa la qaybiyey ilaa 2 booyadood oo biyo ah. Rabbi Azza wa Jalla ayaan weydiinaynaa inuu miisaankeena xasanaadka uu ku kabo. walaalihii run ahaantii deeqdaasi la gaarsiiyeyna ilaahay ha ku anfaco. waxaa sidoo kale wakiilka hay-adda ee gobolka Bakool uu gaarsiiyey deeqdii loogu talagalay gobolkaasi dhowr deegaan oo ka mid ah magaalada Xudur, Buur Dhuxunle, Rabdhuure iyo Weejid. magaalada Xudur ayaa waxaa 44 qoys oo ka mid ahaa qoysaskii abaarta ka soo barakacay run ahaantii aad u dhibaataysnaa ayaa waxaa loo qaybiyey qoyskiiba 25 kilogram oo bariis ah, 3 litar oo saliid ah. waxaa sidoo kale deegaanka Buur Dhuxunle ee ka tirsan gobolka Bakool 40 qoys ayaguna loo qaybiyey qoyskiiba 25 kilogram oo bariis ah, 25 kilogram oo bur ah, 25 kilogram oo sonkor ah iyo 3 litar oo saliid ah. sidoo kale gobolka Gedo ayaa wuxuu ka mid ahaa goboladii uu tagi waayay wakiilka hay'adda Gurmad. waxaan u wakiilanay walaal lagu magacaabo Cabdullaahi Aadan ama loo yaqaan Ustaad Guray. run ahaantii isaguna oo si wakiishay dad lagu kalsoon yahay oo deegaanka ka soo jeeda. waxaa gobolka Gedo laga sameeyey mashruuc biyo dhaamin kaliya ah maadaama dadka deegaanka ay codsadeen biyahaasi. ilaa 13 tuulo oo ka mid ah tuulada Shantoy, Kurtun, Fardojirow, Wargaras, Lugbuur, Alango ayaa waxaa laga qaybiyey 22 booyadood oo biyo ah. run ahaantii waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dhammaan wakiiladii hay-adda oo nagu caawiyey in aan gudano waajibkaasi. ilaahay ha ka ajirsiiyo miisaankooda xasanaadka, ilaahay ha u kabo. dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee lacagahaasi soo aruuriyey iyo intii uu istaagtayba ilaahay miisaankooda xasanaadka ayagana sidoo kale ha u kabo. ilaahay caruurtoodana ha ugu xifaadeeyo. Rabbi Azza wa Jalla waxaan weydiinaynaa inuu naga dhigo kuwa acmaasha saalixaadka dartiisa u sameeya. maalin aan maanta ugu baahi badan nahayna ilaahay ayaan weydiinay inuu nagu baahi tiro. walaal waxaad ogaanaysaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu dhahay wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. ilaahay Azza wa Jalla adoonku waa u gargaaraa inta uu adoonka uu walaalkii u gargaarayo. marka insha Allah ilaahay ayaan gargaarkiisa aan weydiisanay. Rabbi Azza wa Jalla ayaan waxaan weydiinaynaa inuu abaarta wadanka uu ka saaro. run ahaantii mas'uuliyad ayaan gudanay, hase ahaatee baahida intaasi way ka badan tahay mana tiri karto. ilaahay Azza wa Jalla waxaan weydiinaynaa inuu fadligiisa uu ku deeqo walaalaha Soomaaliyeed ee wadanka ku dhibaataysan. aad u mahadsantiin walaalayaal. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.